بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa halkan inooga hadlo mawduucaas oo ku saabsan dhiibistii sarkaalkii oo naleeft qalbi dhagax loo dhiibay dowladda Itoobiya iyo qodobadii ay u cuskadeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. haddaba intaanan u gudagelin mawduuca waxaan jeclaan lahaa inaan subiyo waxaan loogu yeero taariikh raac. taariikhdu waxayna baraysaa oon dhammaanteena Soomaali ahaan aan kala wada dhergsanahay in waddankeena uu soo maray ama weli uu ku jiro dagaalo sokeeyo oo qabiili ah. طبعا hadduu waddanku ku jiro dagaalo sokeeyo oo qabiili ah meesha waxa ka baxayso in la helo hoggaan aamin ay shacabku aaminaan. waana taasi tan keentay in waddanku ku fogaado dagaalka sokeeyo maadaama aysan jirin hoggaan shacabku wada aaminsan yihiin inuu waddanka hoggaamiyo. nasiib wanaag waxaan dhihi karaa 2 jeer ayaa arrintaasi soo martay ummadda Soomaaliyeed. in ma dhihi karo 100% laakiin tiro aad u badan oo shacabka ah waxay aamineen ama hoggaan aamin siiyeen maxkamadihii sanadkii 2006. waxaana ogsoonahay in maxkamaduhu taageeradii ugu badnayd waxay ku kasbadeen markii ay yiraahdeen hoggaamiye kooxdii waddanka ka talinayay magaalada Muqdisho iyo gobolada qaarkooda kuwaasoo caadaystay in shakhsiyaadka Soomaalida ah ay u dhiibaan wadamada ajnabiga ah. maxkamaduhu arrintaasi waxay yiraahdeen ma dhici doonto, arrintaasna waan ka dhiidhinaynaa, dagaalna waan la galaynaa cidda noocaas u binayso. maxkamadii arrintaas waxay ku kasbadeen shacab aad u tiro badan. haddaba waxaa kaloo nasiibkaasi mid la mid ah helay inay hoggaan aamin uu ka kasbado shacabka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. marka arrinka buuqa iyo mucaaradka ugu badan wuxuu ka yimid shacabkii hoggaanka aamin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siiyey kaasoo ay u aaminsanaayeen in uu yahay shakhsi wadani ah karaamadooda iyo sharaftooda ilaalinayo. marka ma aysan filanaynin in uu shakhsi Soomaaliyeed uu u dhiibo cadowga u shali lahaa. waxay u baahan yihiin in lala xisaabtamo inaysan waddanka waxay doonaan aysan ka subin. waxaan halkan ku caddaynayaa shakhsi ahaantayda anigu ma ihi shakhsi mucaarada ama ka tirsan mucaaradka dowladda, isla markaana ma ihi shakhsi ka mid ah dowladda federaalka ah. haddaba aan u gudagalno qodobadii ay dowladda ku meel gaarka ah qodobadii dowladda federaalka ah ay u cuskatay dhiibistii sarkaalkii oo naleeft ahaa ee qalbi dhagax. war-saxaafadoodkoodii waxay ku caddeeyeen in ay la tashi la subiyeen 2 hay-adood oo ah hay-adihii mas-uulka ka ahaa arrimahan
oo kale. kow waxay yiraahdeen waxaan la tashanay hay-adii amniga qaranka taasi oo warbixin naga siisay in sarkaalkan ay gudbiyeen in muddo ahaba uu ka wada wadanka amni darro. kaasi waa qodobka koowaad. waxaa isweydiin leh sarkaalkani haddii uu amni muddo dheer wadanka gudihiisa uu ka waday waxa uu dambiga ka galay waxay ahayd wadanka. waxa uu dhibaateeyena waxay ahayd shacabka. haddaba miyaysan xaq u lahayn shacabka Soomaaliyeed in loo caddeeyo oo loo sheego dambiyadii uu ka galay dalkooda iyo dadkooda? waxaa kaloo taa raaca sida ay war-saxaafadoodkooda ku sheegeen haddii uu ahaa nin muddo dheer uu damiyo amni darra uu wadanka ku hayo magaciisa waa la ogaan lahaa oo waa la aqoon lahaa oo hore ayay saxaafadda iyo dowladdaba u magacaabi lahayd. laakiin shaqsigaas magaciisa waxaan shacabku ay ku baraarugeen 26 bishii tagta ee August taasoo ah waqtiga uu gacanta u galay dowladda Itoobiya. waxa kaliya aan war-saxaafadeedkaasi ay leeyihiin shaqsigani ku caddaynaya inuu yahay shaqsi amni darre ka wada wadanka, inuu xiriir la lahaa ururka al-shabaab. taasi macnaheedu waxaan u fahmnay in ay tahay cid alla ciddii lala wadaajiyay magaca al-shabaab inay ay ku filan tahay in qofkaas uu cadow u noqdo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. bal aan fiirina qodobka ah ay wasaaradda cadaaladda oga dhigtay in shaqsigani oo ahaa dambiile mudnaadna in gacanta loo geliyo dowladda Itoobiya. waxaad moodaa in ay dowladda federaalka aysan u kala saarnayn waxa la yiraahdo heshiis iyo sharci. heshiis walba ma noqdo sharci. heshiisku markii loo gudbiyo hay-adaha sharci dejinta sida baarlamaanka ah cod loo qaado uu helo aqlabiyad markaas ayuu wuxuu noqdaa sharci. marka ma oran karaan shisha sharci ah ayaan ku gudbinay ee waxay leeyihiin heshiis ayaan ku gudbinay. labadaas ayaa iskaga qaldan dowladda federaalka ah. waxaa kaloo jirta haddii ay inay isweydiiyaan war heshiiskani horay ma lagu dhiibay maxaabiis dowladdii idinka horreysay ay soo gashay? sida taariikhda ku cad ma jirto. heshiiska waxaa kaloo ka muuqda inuusan si cad u qeexaynin ama u sheegaynin in maxaabiis la isweydaarsado. maadaama uusan caddayn suma mudnayn in ay kala tashtaan sharci yaqaanada yaqaano dastuurka. waxaan ognahay
in madaxweynaha uu leeyahay la taliye sharci. waxaa kaloona ognahay in xukuumadda ay leedahay la taliye sharci oo ah xiriiraalyaha qaranka. waxaan kaloo ognahay inuu ra'iisul wasaaruhu leeyahay la taliye sharci. waxaan ognahay in hay-adda nabad sugiddu ay leedahay la taliye sharci. dhammaan la taliyaashan sharciga waxay u sheegayaan madaxda ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaaraha noqdo ama xukuumadda laftirkeeda oo golaha wasiirada ha noqoto ama taliyaha nabad sugidda noqdo wuxuu sharci u leeyahay ee dastuurku u ogol yahay awoodiisa. maxay ula tashan waayeen in oo arrinkan uu heshiis yahay iyo inuu sharci yahay iyo inay u bannaan tahay in shakhsi Soomaaliyeed ay u dhiibaan dowlad kale. waxaan ogsoonahay in dowladdani ay mas-uuliyad iska saartay daryeelka maxaabiista Soomaaliyeed ama waddanka gudihiisa ha ahaato ama dibaddiisa ha ahaato. waxaan ognahay in maxaabiis badan ay dowladda federaalka ay ka soo daysay wadamada India, Ethiopia, haddana ay ku jirto processkii oo heshiis ay kula saxiixatay dowladda jasiiradda Seychelles. waxaan kaloo ogsoonahay in madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xabsiga dhexe ku tegay booqasho uuna ku soo arkay maxaabiis badan. wuxuu suubiyey si uu u ogaado dadka xabdarrada ku xiran iyo dadka sharciga ku xiran. wuxuu u qabtay guddi sharci yaqaan ah oo soo baaro dambiyada ay galeen maxaabiistani si loo ogaado ninka sharci darrada ku xiran xaqdarrada ku xiran looga daayo ninkii dambiila oo dambigiis ku cadeeyay uu ku sii jiro. taa waxay saamaxday marka in dad badani xabiska Muqdisho ay ka soo baxaan. runtii waxay ahayd arrintaas in aad loogu farxo shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo. haddaba madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu guddiga u saarayo wuxuu ogaa awoodiisii dastuureed uu ku lahaa dastuurka dowladda federaalka ah in uu wuxuu doono iska suubi karin. haddaba soo maysan mudnayn in sidaasoo kale markii la qabtay sarkaalkii oo neelafta ahaa in loo saaro ama uu la tashto guddigiisii ama xiriiraha qaranka la tashto ama ra'iisul wasaaraha ahaado ama taliyaha nabad sugidda ahaado inay la tashtaan ay sharciga dib ugu celiyaan inay u bannaan tahay in shakhsigan in loo dhiibo dowladda Itoobiya. taasina ma aysan dhicin. waxaa kaloo iyadana su'aal muhiim ah in la isweydiiyo. waxaan ogsoonahay haddii ay dowlad rabto shakhsi dambi ka galay waddankeeda uu ku nool yahay waddan kale laba dariiqa ayay u maraan. dariiq haddii uu jiro heshiis sharciyeed oo baarlamaanadooda laga gudbiyey in ay dowladdaasi si toos ah uga codsadaan in shakhsigaasi loo soo gudbiyo. haddii kalena waxay u isticmaalaan Interpol. marka waxaan isweydiinaynaa aaway warqaddii ama codsigii ay dowladda Itoobiya ay ku soo codsatay in sarkaalkani gacanta loo soo geliyo. yay ku soo dalbatay shakhsiga ay ka soo dalbatay ee mas'uulka ahaa ay ku soo dalbanaysa in shakhsigan loo soo gacan geliyo keebuu ahaa? madaxweynaha ayuu ahaa? ma ra'iisul wasaaraha ayuu ahaa? ma wuxuu ahaa taliyaha nabad sugidda? taana caddeyn ayaa looga baahan yahay dowladda federaalka. isku soo dubduub
shakhsiyaad badan oo ama aqoon-yahana ah ama siyaasiyiin ah ayaa arrintani ka hadashay inay dulduleelo badan tahay qodobadii ay u adeegsadeen inay dhiibaan sarkaalkaasi. haddaba run ahaantii waxa ay ku qanci weyday dowladda federaalka ah iyada laftirkeeda inaysan ahayn wax sharci dhiibistiisa sarkaalkani yay u qaadan dembi ama mucaaradnimo looga soo horjeedo. bal aan eegno qodobka 7 ee war-saxaafadoodkooda ay ku soo saareen bishii Agost 6. qodobka 7 wuxuu leeyahay dowladda federaalka waxay ka fiirsan doontaa heshiisyadii ay horay u soo gashay dowladdii naga horreysay, isla markaana waxay waafajin doontaa dastuurka. meesha marka waxaa ka cad in ay dowladda federaalku laftirkeeda xukuumaddu aysan ku qancin arrinkan. marka arrin ayaga ay ku qanci waayeen iyo nooga shacabka uga qaadan in ay uga qaadan inay mucaaradnimo tahay, ayaga ayaa uga horreeyay inay shacabka ku qancaan in ninkani ay ku dhiibaan heshiiskaasi run ahaantii aan lahayn mid ku salaysan shuruucda waddanka u taalla. haddaba maxaa muhiim ah runtii ka shaqsi ahaan waxaa anigu qabaa in golayaasha ama ha noqoto golaha shacabka ama ha noqoto golaha sare aysan ku degdegin in mooshin ay ka keenaan xukuumadda ama madaxweynaha sababahan soo socda dartood. haddii ay mooshin keenaan ay xukuumadda lagu rido, meesha waxaa ku lumayo oo ka baxayo ciddii in la ogaado ciddii dembiga gashay iyo qaabkii loo maray in dembiga lagu galo. 2 waxaa dhici karto in dembiga noocan ah oo wax badan soo noqnoqdo. 3 waxaan ognahay in baarlamaanka golayaashu iyo baarlamaanka iyo labada goloba ay xubno badan oo isdiidan oo ujeedooyin kala gaar lah inay ku jiraan. haddii ay qolo guulaysato dhaawaca siyaasadeed mar walba wuu jiraya. marka waxaa fiican in arrinkani si xal waara looga gaaro in la abuuro ama la suubiyo guddi madax bannaan. guddigaasoo baaris ku subin doona siyaabihii ay u dhacday arrintani, ciddii ka dambeysay oo ku lug lahayd. taasi marka waxay daawo u tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan shakhsiyaadka ku dhex jira oo u adeegaya cadowgooda. waxay kale daawo u tahay in beritu ay tusaale u noqoto ama cashar u noqoto shakhsiyaadka dambe ee damacsan falalka nooca ah iyo kuwa hadda ku jira laftirkooda way ku quus qaadanayaan. guddigaasi marka waa guddi noocee ah yaase xaq u leh in ay xushaan. guddigaasi waa in guddi uu noqdaa lagu xushaa 2 arrimood. 1 waa inay yihiin guddi aqoon u leh hawshaasi loo dirsaday. 2 waa inay yihiin guddi dhexdhexaad ah oo aan ka tirsan xisbi siyaasadeed ama damac siyaasadeed ku jirin ama dowladda ka tirsan ama golayaasha baarlamaanka ka tirsanayn
ay yihiin guddi madax bannaan. haddaba guddigaasi waa in la siiyaa muddo kooban oo uusan ahayn waqti iska furan. waqtigaa kooban inay ku soo ururiyaan macluumaad sababta ay arrinkaasi ku dhacday iyo ciddii fulisay. marka ay dhameeyaan guddigaasi waa inay keenaan xaqiiqdii iyo sababihii iyo ciddii ka dambeysay ay horkeenaan labada gole. labada gole marka haddii ay ku caddaado dowladda federaalka ah ama shakhsiyaad ka mid ah dowladda federaalka ah in ay go-aan ka qaataan, haddaba go-aankaasi wuxuu noo saamaxayaa way u saamaxayaa labada gole in ay noqoto tuurista ay tuurayaan amba shakhsiyaadka ay dambiga lagu soo oogay mid xalaal u ah ummadana ma ku kala qaybsan karto. waad mahadsantihiin.